السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبينما وناكسنا خيارتنا دعونا يساي ميل كستود كجوجتان دافاع عالمka daawadayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo kuwa geeska Afrika halkan oo waxaan idinku soo gudbin doonaa warar faahfaahsan YouTube-keenan Badiya Bari Channel daawadayaal dawladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u sheegtay inay aqbashay qiimeynta dalalka Yurub ee la xiriira kiiska mucaaradka Ruushka Alex Navalny Washington waxay cadeysay inay taageersan tahay gunaanadka ay gaadheen xulafada Yurub taasoo muujinaysa isku duubni diblomaasiyadeed oo ka dhan ah Ruushka arrintan ayaa laga yaabaa inay sii xoojiso cunaqabataynta iyo cadaadiska siyaasadeed ee saaran Moscow sidoo kale dhanka kale gudaha Mareykanka qaybo ka mid ah hay'adaha federaalka ayaa wali xidhan kadib markii la isku mari waayay miisaaniyadda iyo siyaasad la xidhiidha xuduudaha iyo socdaalka khilaafkan ayaa saameyn ku yeeshay shaqooyin dawladeed iyo adeegyo dadweyne dhanka kale sidoo kale tartanka 2026 Winter Olympic ayaa si rasmi ah uga socda iyadoo wadamo badan ay ku tartamayaan ciyaaraha barafka ee lagu dul ciyaaro tartankan ayaa indhaha caalamka soo jiitay wararka ardin haynaa Yurub waxaan idinku haynaa shirweynaha caalamiga ah ee Munich Security Conference ayaa si weyn diiradda u saaraya dagaalka Ukraine amniga Yurub iyo mustaqbalka iskaashiga NATO hogaamiyayaasha reer Yurub ayaa ka walaacsan si socoshada dagaalka iyo khatarta amni ee ka dhalan karta waxaa sidoo kale laga hadlay xiriirka Mareykanka iyo Yurub iyo doorka NATO ka qaadanaysa difaaca wadajirka ah sidoo kale wararka ka imaanaya dhanka iyo Afrika midowga Afrika ee African Union ayaa xoojiyay dalalka ku aadan inay Afrika hesho kursi joogto oo golaha ammaanka qaramada midoobay ah qorshahan ayaa lagu tilmaamay mid istiraatiiji ah oo kor u qaadi kara matalaadda qaaradda sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa kulan ku yeeshay Addis Ababa labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay amniga xuduudaha iskaashiga ganacsiga iyo xaaladda guud ee geeska Afrika warar kale ayaa sheegaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu wado dadaalo diblomaasiyadeed oo la xiriira gobolka inkastoo aan wali la shaacin wax waro rasmi ah dhanka kale Soomaaliya iyo Turkiga ayaa sii wada hawlgallada sahaminta shidaalka ee xeebaha dalka gaar ahaan deegaano ka tirsan Galmudug khubaro Turkish ah ayaa ka shaqeynaya ururinta xogta seismic si loo ogaado kaydka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in talaabada xigta ay noqon karto soo saarista shidaalka natiijo lagu qanco oo la helo sidoo kale Soomaaliya ayaa heshiis difaac la saxiixay Sacuudi Arabiya kaasoo la sheegay inuu ku saabsan tababar military iyo iskaashi amni dhanka kale wararka ka imaanaya dhanka iyo Jamhuuriyadda Somaliland ayaa joojisay dhammaan xafladaha iyo munaasabadaha abaalmarinta shaqaalaha dawladda ilaa amar dambe go'aankan waxaa amray madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyadoo loo cuskaday abaaraha ba'an ee ka jira dalka war-saxaafadeed xukuumadda ayaa sheegtay in ay jiraan biyo yaraan baahsan xoolo dhimasho iyo barakac mudnaanta in la siiyo gargaarka bini'aadanimada si kastaba ha ahaatee furitaanka mashaariicda horumarinta qaranka kuma jiraan joojinta war qoraal ah oo ka soo baxay xukuumadda ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay jawaab celin rasmi ah oo ku aadan warqad la sheegay inuu horaantii bishan diray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud qoraalkan ayaa lagu sheegay in kadib qiimeyn istiraatiiji ah oo ay samaysay dawladda Israa'iil aysan waqti u arkayn maamul ka jira Muqdisho mid leh awood wax ku ool ah gaar ahaan dhinacyada amniga iyo istiraatiijiyadda gobolka sidaas darteed Israa'iil waxay sheegtay inaysan hadda diyaar u ahayn inay bilowdo xiriir diblomaasiyadeed ama iskaashi istiraatiiji ah oo ay la yeelato dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale
ay si gaara u tilmaamayaan in Israa'iil ay danayn gaara u hayso Somaliland iyadoo ku sifaysay maamul xasilooni oo amni ahaan lagu kalsoonaan karo isla markaana saaxiib istiraatiiji ah muhiim u ah marinbadeedka iyo ganacsiga gobolka Geeska Afrika. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale xusay in aragtida Israa'iil ee gobolka ay ku salaysan tahay xasiloonida, iskaashiga amniga iyo danaha istiraatiijiyadda ah ee muddada fog. Falanqeeyayaal siyaasadeed ayaa sheegay in bayaanka uu kor u qaadi karo doorka diblomaasiyadeed ee Somaliland iyo gobolka, isla markaana uu saameyn ku yeelan karo isku dheelitirka siyaasadda ee Geeska Afrika. Si kastaba ha ahaatee, ilaa hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan jawaab celin. Ra'iisul wasaaraha Turkiga oo u ballansanaa madaxweynaha Imaaraadka oo gas la siiyey, balle daawad waxaa falanqeynaya Cabdisalaam. degdeg madaxweynihii imaaraadka carabta ayaa gebi ahaanba u jaray kulankii kala dhexeeyey Erdogan kaasi oo dhici lahaa maalinta berriya. khadka telefoonka ayay ku wada hadleen, waxaana uu ku yidhi war xanuunsanayaa ha ii imanin, dib inoogu dhig kulankaasi. nin geed geli jiray geed looma galo. dalka isku tagga imaaraadka carabtu waxa uu og yahay cadowga keliya ee uu leeyahay inuu yahay turkigu inuu yahay gafane. sidaan idinkula wadaagay muuqaal aan soo dhigay barta facebookna, mid ka mid a xildhibaanada dalka turkiga ayaa sheegay in been ay tahay, gebi ahaanba been cad ay tahay, in waddanka turkigu uu ka laabtay heshiisyadii gaasta ee uu kula jiray waddanka loo yaqaano Israa'iil. dekedda Haifa ay taagnaayeen maraakiib shidaal siday markii bishu ay ahayd 7, haddaba bishan February ayna leeyihiin wax xidhiidha oo xun oo u dhexeeya Turkiga iyo Israa'iil ma jirto. Hakan Fiidaanna waa kii hore u yidhi wax naga dhexeeya oo balaayo ah oo na dhex taagan annaga iyo weliba sidoo kale Israa'iil ma jiro. Turkigii waa ku duntay, way ku duntay Turkigii. wax alle iyo wax aanu idiin haynaana ma jire, inuu kala wada la isku yidhi. Tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan. Guys, like, share, comment, please kor u qaada baalka halkii buu ka dhaqaaqi laayay. Habeen wanaagsan. Bye.